السلام عليكم لما walaalaha channelkan ku xiran waa idin salaamay sheekadan soo socota ayaa ka dhacday mid kamid ah wadamada Carabta waa sheeko ku saabsan isticmaalka aafada maandooriyaha iyo khatarta ay nolosha ku leedahay sheekadan waxay ku socotaa gabar nolol wanaagsan ku noolayd oo qoys iyo reer lahayd laakiin nolosha meesha ugu hooseysa ka gaartay isticmaalka maandooriyaha ama droogada balse intaan guda gelin haddaan ugu cusubtahay ugu soo biir muuqaalkan like saar si uu meel sare u gaaro mahadsanid gabadha aan ka sheekaynayno hooyadeed waxay dhimatay iyada oo yar aabaheed wuxuu guursaday haweeney kale waxaana lahayd walaalo kale xilligii qaangaarka waxaa ku bilowday ilaalin la socod uu ku sameynayo aabaheed wuxuu ka horjoogsanayay inay dibadda u baxdo waxa uu ku ilaalin jiray waxbarashada inkastoo aabaha uu ku dhaqmeeyay habdhaqankan laakiin waxa uu ka baqayay in gabadhiisa jidka wanaagsan ay ka leexato sidaas oo kale ayuu wiilasha walaalaheed ahna ula dhaqmi jiray laakiin gabadha waxay u aragtay in aabaheed waxaan uu sameynaya ay tahay in uusan jeclayn gabadhuna waxa ay go'aansatay inay aado si ay ula noolaato ayeeyadeed hooyadeed dhashay inkastoo aabuhu uu ka soo horjeestay go'aankaasi haddana waxa ay ku adkaysatay qoyska hooyadeed in ay la noolaato waxay ka tagtay aabaheed waxayna jartay xiriirkii kala dhaxeeyay iyada iyo aabaheed gabadhu markii ay tagtay guriga ayeeyadeed waxay heshay nolol madax bannaan oo ay waxa ay rabto sameyn karto sida ay doontana ay u dhaqmi karto maadaama ayeeyadeed ay ahayd qof waayeel ah oo ay ku adag tahay la socodka dhaqamada gabadhan sidaas oo ay tahay waxay aadi jirtay waxbarashada iyadoo markii dambe dhamaysay dugsiga sare waxayna gashay kulliyad u dhigantaa dhibcaha ay heshay markii ay qalin jabisaysayna shaqo ayay heshay nolosheedana sidaas ayay ahayd intii ay shaqadeeda haysay waxay la kulantay nin dhalinyaro ah waxa uu u soo bandhigay in ay isguursadaan wayna ogolaatay inkastoo aabaheed aysan isku wanaagsaneyn laakiin wiilkii waxay bartay aabaheed waxa uu wareystay wiilkii waxna ka weydiiyay noloshiisa aabaheed waxa uu ka hor yimid guurkooda waxa uu gabadhiisa u sheegay in wiilkan u qalmin uusan u wanaagsaneyn nolosheeda dambe laakiin gabadhu waxa ay ku adkaysatay in ay guursato oo waxa ay guursatay iyada oo uusan aabaheed ogolayn raalina ka ahayn noloshii markii ay guda gashay waxay ogaatay wax kasta oo ku saabsan ninka ay guursatay waxay ka weyday dhammaan ballanqaadyadii uu sameeyay guurka ka hor waxay noqotay inay ku noolaato dhibaatooyin waaweyn waxay ogaatay beentiisa muddada ay isla joogaanna waxay u dhashay 2 wiil dhibaatooyin badan kadib waxay go'aansatay inay codsato furiin markaasna waxa ay diiday in ay la xiriirto aabaheed ama walaalaheed iyadoo ka baqaysa inuu eedeeyo ama ay eed uga timaado qoyskeeda xitaa markii isaga iyo walaalaheed ay la soo xiriireen oo ay isku dayeen inay heshiisiyaan iyada iyo ninkeeda caruurteeda darteed laakiin way diiday ilaa aabaheed uu dhinto isagoo xanaaqsan kadib markii ay kala tageen ninkeeda waxay bilowday inay isticmaasho aaladda internetka si ay iskugu maaweeleyso maadaama ay dareemayso culaysyo isbiirsaday waxay furatay facebooka waxayna ka heshay wiil ay isku fasal ahaayeen waqtigii waxbarashada waxayna bilowday in ay si gaar ah ula hadasho cadaadisyada iyo dhibaatooyinka soo wajahay awgood waxay bilowday in ay sigaarka cabto waqti dheer ma qaadan ilaa uu u sheegay in uu jecel yahay oo uu doonayo inuu guursado waxa uu lahaa xaas iyo qoys waxa uu u sheegay inuusan jeclayn xaaskiisa jacaylna aysan ku wada joogin gabadhan oo jacayl iyo naxariis doonaysa waxay rumaysatay hadaladiisa isla markaasna waxa ay dareentay in ay jacayl u qaadayso waxay bilowday in ay ninkan kula kulanto meelo aan munaasib ahayn maxaa yeelay waxay u maleynaysay in uu guursan doono isla markaana kulankoodii hal mar iyo ka badan ayuu dhacay maalin maalmaha ka mid ah waxay u sheegtay inay dareemayso madax xanuun waa maalintii ay hooga iyo halaaga lagu hadarsatay sidaas darteed wuxuu siiyay dawadii ay ku yareyn lahayd madax xanuunka markiiba waxa ay dareentay in madax xanuunkii iyo daalkii ay isku bedeshay raaxo iyo rayn maalmo kadib waxaa sidii u xanuunay madaxa kaniiniyo ayay cuntay waxba waa ay ka tiri waayeen waxay la xiriirtay ninkii waxayna ka codsatay inuu u sheego magaca dawada uu siiyay markaas buu u sheegay inuu u keeni doono marka ay la kulanto runtiina kaniiniyadii ayuu mar kale siiyay oo mar kasta oo ay la kulanto wuxuu siin jiray kaniiniyadan oo iyaduna way qaadanaysay maxaa yeelay waxa ay dareensiinayeen raaxo iyo farxad
inkastoo ay ogaatay in kaniiniyadani ay yihiin daroogo laakiin kuma aysan fikirin inay ka fogaato ama ay iska dayso. waxay u malayn jirtay in kaniiniyadani ay ka caawinayaan yareynta dhibaatadeeda oo ay ku dareento mid faraxsan. waxayna ku fikiri jirtay in caruurteeda ay waqti u heli karto, laakiin xaaladuhu gebi ahaanba way isbedeleen. muddo kadib waxay bilowday inay si buuxda ugu tiirsanaato kaniiniyadaas. marka ay qaadan weydana waxay dareemi jirtay inay waalan tahay, waxayna bilowday inay u dulqaadan weydo hadallada. waxay isku dhacaan shaqaalaha ay la shaqayso. waxaa dayacmay labadeedii wiil oo ku soo dhacay nolol midii ugu liidatay oo ay galaan. waxa ugu daran ayaa ah inay saameyn ku yeelatay joogteynta daroogada. waxay marar badan la hadli jirtay ninkii musiibadan lugaha u geliyay, iyadoo ka rajaynaysay in uu guursan doono sidii uu horay ugu ballan qaaday. naxdinta ugu weyn waxay ahayd markii ninka xaaskiisa soo wacday gabadhan oo u sheegtay in ay hayso muuqaallo iyo codod uu ninkeeda ka duubay. waxayna u sheegtay haddii ninkeeda ay ka haraweydo in muuqaaladaasi ay ku baahin doonto baraha internetka. laakiin nasiib darro waa ay ka fogaan kari weyday isaga, waayo waa kan u keena alaabtaasi, markastana waa ay la xiriiri jirtay. ninkan ayaa ka codsaday inay siiso dahabkeeda, maxaa yeelay waxa uu u sheegay inuu u baahan yahay lacag. wayna yeeshay oo ay siisay. markii ay ka codsatay inuu guursado sidii uu markii horeba u ballan qaaday, wuu ka dhuuntay, wuxuuna u sheegay inuusan diyaar u ahayn in uu dhibaato kala kulmo xaaskiisa iyo caruurtiisa. waxa uuna u sheegay in hadda sida uu xiriirkoodu yahay ay ku sii socoto. ugu dambeyntiina waxay dareentay inay nafteeda gashay xaalad aanay ka bixi karin, oo dadkii la shaqayn jiray ay ogaadeen in habdhaqankeedu uu noqday mid yaab leh oo isbedelay. madaxdeeduna waxa ay bilaabeen inay warbixino xun ka gudbiyaan. xaaladeedana waxa ay noqotay mid aad u xun oo ay halis ugu jirtay inay ku dhacaan xanuunada maskaxda. waxay bilowday in ay samayso dabeecado qariib ah oo ay ku sheekaysato sheekooyin khiyaali ah, iyadoo ay sabab u tahay balwadda iyo qabatinka iyo filan waaga ay kala kulantay ninkii dhibtan lugaha u geliyay. ma aysan ogeyn in ninkan xaaskiisa ay la xiriirtay walaalaheed una sheegtay xiriirka gabadhan iyo ninkeeda. waxayna ugu hanjabtay in muuqaalada ay ku daabici doonto internetka. waxayna walaalaheed go'aansadeen inay si degdeg ah usoo dhex galaan si ay u xalliyaan dhibaatada ay walaashood ku jirto. waxay ka codsadeen xaaskii ninka inay tirtirto muuqaalada, maxaa yeelay walaashood waa hooyada 2 caruur ah iyo in ay yihiin dad ixtiraam ku leh bulshada dhexdeeda, ayna ka baqayaan in ay sharaftooda saameyn ku yeelato muuqaaladan. waxayna u ballan qaadeen in ay walaashood aysan ku sii jiri doonin xiriirka noocaas ah iyo nolosheedaba. markii ay u tageen walaashood, waxay ogaadeen inay ku sugan tahay xaalad murugo leh, maadaama ay ku jirtay xaalad burbur iyo nafsi ah, sababtoo ah waxay u baahnayd daawooyinka daroogada. xaaladda caruurteeduna waxay ahaayeen mid aad u liidata, maadaama ay joojisay daryeelkii ay siin jirtay gebi ahaanba. waxayna ku tiirsanayeen inay cunto kasoo iibsadaan maqaaxiyaha cuntada. gurigana waxa uu ahaa mid aad iskugu dhex yaacsan oo wasaqdu meel kasta taallo, mar horena ay ugu dambeysay nadiifin. waxay go'aansadeen inay si degdeg ah u geeyaan goob caafimaad si loogu daweeyo. waxayna daryeeleen caruurteedii muddadaas. dhowr toddobaad kadib waxaa laga saaray rugtii caafimaadka. waxayna ka raali gelisay walaalaheed falkii ay samaysay. waxayna u ballan qaaday inay joojin doonto dhaqankii ay ku jirtay, ayna daryeeli doonto caruurteeda. daroogada nooc kasto ay tahay waa mid qofka dhaxal siisa nolosha meesha ugu hooseysa. waxayna dhaawacdaa maskaxda, jirka iyo deegaanka. waxayna ku geynaysaa godka salkiisa mugdiga ah, iyo murugadana waxa ay noqonaysaa wehelkaaga. muddada kooban ee qofka ay jirkiisa ku jirto daroogada waxa uu gelayaa nolol khiyaali ah, balse marka ay ka baxdo waa mid jooga meeshiisii iyo meel kasii liidata. waa tahay akhyaarta channelka ku xiran, aad baad u mahadsantihiin dad halkan nala soo gaartay. waan kaaga mahad celinaynaa waqtiga aad u hurtay sheekadan, dhageysigeeda iyo daawashadeeda. fadlan haddaad nagu cusub tahay nagu soo biir oo channelka subscribe saar. haddaad horey noola joogtana waxaan ku leenahay aad baad u mahadsan tahay. nagala qayb qaata horumarinta channelkan, muuqaalkana like saar, ku share garee meel walba aad isdhihi kartid waa lagu share gareyn karaa. intaan dib u wada kulmi doono
nabadgelyo.